ku hormaro qaran Axmed Naasir. والله يعني إلى هذا يعني واحد كان استدعى كينيا ودقنت يعني ولما فهمتني بقول يعني مركب في الرماء دولة كينيا ودقاق يعني لما تلمامي كرا sababta keentay waxa ila cad ana hadda ma aha waxyaalo kale oo waxa laga yaabaa iska qarsoon inuu jirta laakiin arrin oo hadda aan gacanta ku tilmaami karna mal hay Cabdirashiid horta dhulkan hadda badeedkan Kenya ay sheeganayso Soomaaliyana ay sheeganayso sida la tuunsan yahay waxa ku jira khayraad aad u badan oo bilaayin dollar ah cidii gacanta ay u gasho Kenyana adigu waxaad moodaa sababtu waxay rabtaa ahaatee inay dhulkaas iyo baddaas iyo khayraadka ku jira ay isasiisay oo ay damac baa ka galay damacaas ka galayna waxaa moodaa in maxkamadda caalamka markii la tegay oo arrinta laisla tegay in gartu ay u doodahay sida Soomaaliya ay ku doodayso oo ah markii xuduud labada leeyihiin xuduudda meeshay ka soo gaarto badda waa toos loo sii wadayaa laba leexleexinayo Kenyana ay doodeedu leexleexin iyo dhulka hadda ay sheeganayso ay tahay ama sideedaba runtii ay isleedahay Soomaalida gilgil si dacwada looga soo celiyay maxkamadda oo banaanka loogu kala goosto taasoo ay Soomaaliduna siyaasiyiinta Soomaaliduna ay samayn karin marka waxaa dhici karta sidoo kale shirkadaha baasiinka daba socda iyo dalalka siilaha dalal kala duwan baa shirkadaha dhameysha Kenya ay siisay qodob tiri dalal kale ku sii xiran yihiin marka Soomaaliya in la camaarkiinayo oo la rabo in la gelgelay inay tahay marka runtii meesha xoolaha yaala siyaasadda caalamkuna morality kuma shaqeysay kala muraad iyo yaa xoog leh iyo yaa hawsha ay u mari kartaa wax lagu wadaa badanaa waa kugu soo noqon doona haye Dr. Axmed Falastiin waa mahadsantahay walaal haddaan dib ugu noqono maanta meeshaan taagana sidaan ku nimi sidaa la socoto waddanka Soomaaliya muddo badan ayaa shidaal isku dayay in laga baaro marka laga soo bilaabay 80 markii dawladii burburtay dawladii ka dambeeyay wax sidaa u weyn ma sameyn marka laga reebo kambaniyo yar oo African Oil iyo waxa 2013 ayay Soomaaliya dib isugu dayday inay kambaniyadii shatiyada ku lahaa inay isugu yeerto inta badan way diideen inay soo noqdaan iyagoo ka baqaaya meesha dib u kala kulmo xilliga isaga ah oo Soomaalida isku daysay inay dib u bilaawdo exploration Kenya iyo Soomaaliya murankooda waa taagnaa oo dhulkan la isku haysto sida kadib waddanka sidiisaba dhaqaale male technology male intaa waxaa dheer malahayn aaminaad kambaniyadii inta badan way ku gacan saareen inay yimaadaan dawladda markaa jirtay waxaasan dacweyne ka ah waxa ay ka fursan weyday inay Som Oil and Gas ay u xisaarto siday u iibgeyn lahaayeen hantidan meesha ka buuxda marka la bilaabay sahmintii waxaa ku xiga hadda in blogyadii iyo wixii la qaybinayo oo dadkii maalgashan lahaa ay kambaniyadii loogu yeeri lahaa ama ay ku tartami lahaayeen Kenya iyadoo taas ka boodaysa ayaa waxay markiiba soo cusboonaysay dhulka la isku haystay dhulka hadda baaritaanka ka socda ma aha midka muranka ka taagan yahay waa midka Soomaalida leedahay markaad fiiriso ereyada East Africa sida Mozambique Tanzania inta badan kheyraadka dabiiciga ama inta badan wax soo saarka ilaa hadda lagu tuhunsanaa ama laga soo saaro wuxuu badan yahay gas sida methane ethane propane dhulka Soomaalida waa markii ugu horeysay ee astaamo oil ah ay jiraan markii dhulka triangle-ka ah muranka ka taagan yahay Kenya waxa ugu weyn ay sameynayso waxay tahay shidaal fara badan oo meesha tuhun ka jira iyo sidii ay iyadii u maamul lahayd waxaana qarsoonay inay mar hore shatiyaal ay siisay kambaniyo ay ka mid yihiin Total iyo Anadarko oo ku sugan magaalada Houston
marka waxa meesha ugu weyn ay ku dagaalamayso waxay tahay inay controlsho. waa mahadsantahay waa kugu soo noqon doonaa. waxaan siinayaa qareen axmed naasir. Kenya si cara lahay uga jawaabtay arrintii shirkii London. safiirkeedu waa soo wadatay, kii Soomaaliya wadatashi u dirtay, inkastoo ay Kenya tiri ma eryin, laakiin luuqadda diblomaasiyadda marka lagu yiraahdo wadankaaga ama wadatashi u aad ama wadankeena nooga bax ay la micno tahay nooga baxday. marka la isku geeyo sida Soomaaliya ay uga jawaabtay, jawaabtii dawladda Soomaaliya ay bixisay maxay muujinaysaa? sadii markii hore baan idin sheegay mataqaanaa Kenya go-aanka ay gaartay yani waqtigan ay gaartay yani si fiican looma fahmayo, laakiin markaad fiirisid Kenya sababta arrintaas u keenay oo ku marmaritoonaysa yani Soomaaliya inay bixisay dhulkaas baddaas laisku haysto oo kambaryaal siisay. dadkan oo badi u aqaana cilmigaas waxaa la ogaaday Soomaaliya inayna bixinin dhulkaas oo baddaas kambaryaalka ina u dhiibin. laakiin aniga sida ila muuqata ilaa hadda yani Kenya wax u dhaqatay oo safiirkii Soomaaliya dalka ka eritay oo safiirkeedii maxamar joogay oo usoo ceshatay yani sabab oo specific oo la sheegi kara, sabab oo specific oo la dhihi kara yani taasaa sababtay ilaa hadda aniga uma arki. laakiin waa saa sheegteen arrinta u weyn oo hadda Kenya meeshan soo fotaaris waxaa weeye yani arrintan waxay taalaa maxkamadan oo International Court of Justice, sharciga adduunka u yaalo oo badaha sida xuduudka loogu yeelo. markaa fiirisid Kenya keeska oo maxkamadda ay geysay kees oo culus ma aha. adduunka o dhan mataqaana markaa fiirisid qaynuunka u yaala oo sharciga loo ogdisay tritigan oo dawlad adduunka o dhan waragaleen idinka sida loo jooreyna waa sida oo mataqaana Soomaaliya ay ku doodeysa, sida ay Kenya ku doodeysa maaha. kabacdi arrinta waxaa laga yaabaa yani inay laga bal waana isku dayda mar hore Soomaaliya inay kasoo laabato maxkamadaas oo mataqaana anwaan labada dalmood laga dhameeyo. laakiin waa inaa fahamsika mataqaana yani Soomaaliya hadda dal saas xoog badnaa, waa dal iska tabar yar, waa dal iska buray, dawlooyin badan oo iska goboleed oo jooga oo marmar dawladda oo xamar aan ka amar qaadanayn oo waxaa laga yaabaa dawladda inay Nairobi ka amar qaataan. Kenya waxay ka faaidaysanaysaa Soomaaliya marxaladda ay taagan tahay maanta. dhibkaas oo dhan ay u malaynaysaa yani Soomaaliya hadda meeshii joogta waa meeshii ugu tabaryarayd, inta ka dambana waxaa laga yaabaa inay sii xoogeysanaysa. so fursad ay ka faaidaysanaysaa Kenya ay leedahay this is the right time aan Soomaaliya concession inaan ka helnaa dhici karta. marka haddii jawaabta marka la barbar dhigo jawaabta Soomaaliya ay bixisay oo weli jawaab rasmiya aanay Kenya ka soo celin ama aanay aqbalin sidii Soomaaliya ay usoo gudbisay, xagee meeshaan labada wadan ay ka aadayaan? laakiin Soomaaliya jawaabta ka bixisay mataqaana waxaa weeye jawaab oo beenaynaysa yani sababaha ay Kenya sheeganaysa inayna sax ahayn. oo maadaama ay Kenya ku andacoonaysa Soomaaliya dhulkan waxay siisay ama baddan waxay siisay kambaniyaal, Soomaaliya waxay tusto un mataqaana hataa yani jawaab xoog lama, laakiin waxay tusto un Kenya sababta ay sheegtay inayna saxayn oo khalad ahayd. waxaan siinayaa Cabdirashiid Qalif. haye Cabdirashiid. dawladuhuna badanaaba inay intay saas u maaragtay beriil iskaga kiciyaan haddana inay U-turn sameeyaan oo kala jeerayaan badanaaba laguma yaqaan. macnaha inay ajendayaal kaloo Kenya kasii fogna ay jiraan oo oil companieska iyo dawlado kale iyo iskaanshaan guursi caalamiya iyo meelo kale Kenya laga soo riixayana waa la tuhmi karaa. sababtoo siyaasadaha dawladaha maaragtay Soomaaliya ku arki jirna iyadoo laba wadan is haystaan ama Sweden iyo Sacuudi iyo Carabiya ama wadamo kale is haystaan oo war-saxaafadeed ama Ukraine iyo Ruushka is qabsanayo war-saxaafadeed lasoo gamahayo meel sabab loo soo gamahayo aan la aqoon. marka xataa Kenya laftigeed in la iska hubiyo weeye inay kaligeed hadlaysay in laga dhaxlayo. wasiirka arrimaha dibadda Kenya Ambassador Monica Juma waxa ay sheegtay in taaka ay Kenya leedahay aysan Soomaaliya uga hari doonin. meelaha hadda ay carabka ku dhufteen oo blogyadana waxay sheegtay waa 230, 231, 30 iyo 232 iyo 233 in ay tahay meelaha ay Soomaaliya beec geysay, intaasna ay yihiin meelaha lagu muransan yahay. marka halkaas waxaa ka muuqata inay weli Kenya ku adkaysanayso in dhulka la beecgayo uu ku jiro ama meelaha shidaalka ay London sheegtay in lagu soo bandhigay blogyadaasi. waxaan siinayaa Dr. Axmed, blogyadaasi ma ku jiraan kuwa lagu muransan yahay? u malayn maayo sida Soomaalida
ay og yihiin waxa ay meesha geeyeen kuwa la hubo mana cadda. markaa fiirisa maapka waxa Kenya ay ka dacwoonayaan waa dhulka Soomaalida oo baaritaanka iyo sahanka ama daraasaadka ka socdo. taa waxaa barbar socda waxaa jira dhul lagu muransan yahay. dhulkaas lagu muransan yahay qolo walba tafaasiir ama siba u fasirataa. Kenya waxa ay u fasiranayaan in ay cabirka line-ka laga soo bilaabo latitude marka la eego coordinate. Soomaalidana waxay u fasiranayaan in laga fiiriyo dhanka borderka dhulka. marka dhanka dhulka oo borderka Soomaalida iyo Kenya ka fiiriso, line-ka Soomaalida wuxuu dhex gelayaa gudaha Kenya. waa adag tahay sida sharciga adduunyada qabana aniga lawyer bihi sida Soomaalida sheeganaysa ayay ku dhowdahay. laakiin haddii maxkamadda la tago oo maxkamaddu ay qolo u xukmiso waa riski labada dhinacba. marka Kenya iyagoo riskiga ka cararaya mar walba waxay leeyihiin waxay annaga aan xeer jajab ama xeer hoosaad ku dhamaysano. sidaan ognahay 15 blog ayaa lasoo bandhigay. blogii waa ilaa 5,000 kilometer square. marka loo rogo wuxuu noqon karaa qiyaastii ilaa 2,000 minimum ilaa 8,000 ayro meelay kasoo bixi karto. marka waa garan kartaa haddii dhulka lagu muransan yahay inta baloogu noqon karo iyo inta ceelay noqon karto. haddii qolo loo xukmiyo iyo haddii iyaga inta ay dhexdhexaad raadsadaan ku heshiiyaan waa wax labada wadan u yaala. laakiin waa adag tahay maxkamad haddii la tago go-aanka qolo unbaa la siin doonaa. marka taa lafteeda dhibaata leeda. annaga laftigeena Soomaali haddaan nahay inaan taa lafteeda ka fikirno waayo. maxkamadda haddaan tagno maxaa ka imaan kara. waa mahadsantaa. waa kugu soo noqon doonaa. waxaan siinayaa qareen Axmed Naasir. Kenya iyo Soomaaliya xuduudda ay wadaagaan kasokow dadaa ka dhexeeya. waxaa ka dhexeeya ciidamadii Kenya gudaha Soomaaliya howlgallo nabad ilaalina ka sameeya. waxaa jira qaxooti badan oo Soomaaliya oo Kenya jooga. Kenya laftirkeeda marxalado adag ay wajahaysaa oo ha noqoto ama argagixiso gudaha wadankeeda kasi jira ama ha noqoto kuwa xadka kasoo tallaabay weeraro kala duwana iyada laftirkeeda haysta. xiriirka labada wadan oo xumaada saameyn intee la eg ayuu ku yeelan karaa labada dal? horta labadan wadan ma kala maarmaan haddii la fiiriyo yani xiriirka udhexeeya. Kenyana inkastoo hadda malaha malaynaysa inay Soomaaliya uga xoog badan tahay, dhab ahaan haddii la fiiriyo wax taas oo udhexeeya inkastoo dal degan tahay, dal oo dhaqaale fiican tahay, dal oo siyaasadeeda iska qabowda tahay, laakiin si kastaba ahaatee maanta yani Soomaaliya marka u fiirisid 20 sano ama 30 sano xiriirkii lahaayeen maanta yani waa maalinta ugu xun inay Soomaaliya iyo Kenya xiriirkooda meesha u gaara. maadaama Kenya usoo samirtay ama waxyaalo badan ay u hagaajisay Soomaaliya oo qaxootiga oo galaatay dalka inuu jooga Soomaali badan oo ka bixi mushtara xiriir fiican inuu Soomaaliya la lahayda. yani markaad fiirisid siyaasad ahaan Kenya maanta Soomaali oo xiriirka ku xumaysa wax faa'iido ay ku leedahay male. Soomaali sideeda kale haddaad fiirisid maadaama isbedel weyn uu Ethiopia ka dhacay oo geeska Africa oo dhan ba siyaasadda bedela Kenya dhab ahaan haddaad fiirisid yani awoodda lahaan jirtay geeska Africa hadda male oo Ethiopia zaid usoo xoog baxaysa. waxaa kaloo jirta mataqaanaa Eritrea oo iyadana iska hay dal oo cunaqabateyn badan lagu hayay. maadaama hadda cunaqabateynkii kulli laga qaaday, Eritreana waxay noqon doontaa mataqaanaa dal oo door weyn ka ciyaara geeska Africa. kabacdi waxaa laga yaabaa siyaasadda Kenya oo hadda sida oola dhaqmaysa Soomaaliya inay tahay bal inay tusto dalalkan oo East Africa in mar labaad la fiiriyo. ilan 3 bilood la soo fiiriyo 3 bilood la soo dhaafay haddaad fiirisid Kenya yani door weyn oo diblomaasiyadnimo kama ciyaareen East Africa. kabacdi waxaa laga yaabaa inay buuqan ay u kicinaysaa bal in mar labaad lasoo fiiriyo Kenya oo la ictiraafo oo la ogaada dal weyn oo door weyn ka ciyaari kara inuu yahay regionka. amaasan tahay Cabdirashiid. runtii horta xiriirada dawladuhu waa iska sabeeyaa oo marna waa iska fiican yahay marna waa la kala boodaa. laba dawladood mar kastana runtii dee caysho milaxa badan ma dhacdo.
marka xataa haddaan dagaal saasa jirin oo military iyo colaad iyo dhaqaalaha la isku qabsanaya. haddii cable bedel la keenayo oo maaragtay fiber optic ah, waxaa dhici karta Djibouti iyo Soomaaliya dad ugu walaaleysan labadaba inay jeclaan lahayn oo iyaga kasoo dhaco Ethiopia ka gadaan. marka tensionka ganacsiga iyo loolankaas waa iska natural, noloshu qayb ka yahay. sida hadda ay Soomaaliya iyo Kenya isugu maaragtay isugu firirsan yihiin oo waxay ka dhexdaatan yihiin, ama qaxootiga hadda adigu sheegtay ha noqdo, ama shabaab oo ayaga dhan isku si maaragtay oo dagaalamay ha noqoto, ama ciidanka Kenya ka tirsan AMISOM ha noqoto, ama iyagoo darisa ha noqoto. runtii isqabqabsi iyo colaad macnaha uma fiicna. waxyaaba badan baa kharimahaya, xiriirka kharimahaya. Soomaalidu aad bay Kenya u isticmaalaan, ganacsi u isticmaalaan, diyaaradaha waa laga soo dhul bilaabaa marka Yurub iyo meelahaas iyo adduunka laga imaanayo. inkastoo hadda Turkish Airlines soo maray, Ethiopian Airlines la helay. guud ahaan runtii aad baa loogu dhibtoonahayaa in labada qoloba ugu dhibtoonayaan. qaar badan bay Soomaaliya keenaan iyagu, aqoon-yahanadooda iyo macalimiintooda iyo professionalskooda Kenyaatiga waa Soomaaliya aada uga shaqeeya. marka aad baa la isugu dhaqan yahay, si laba wadan oo kasoo darisa ay isugu dhaqan yihiin. marka haddii xuruurku xumaado oo welibana intii shacabka iyo siyaasiyiinta iyo saxaafadda iyo intuu qaylada iyo soo dhex gasho iyo buuq soo dhex gasho, haddii la coloobo dana badan baa dhumahaya. haddana the stakes macnaha waxa la isku hayaana waa wax weyn weeye, oo dhul iyo bad iyo xoolo ku dhex jira. marka haddana Kenya sidii maanta warkeeda ay ku sheegeen weli maaragtay ma qanacsana inay apology rabaan, waxna maaragtay maxaa la dhahaa sanctions ama ciqaab ama cunaqabateyn iyo wax ka fakarayaan. way journaaladu way xusayaan. isku soo duub haddii xaaladdu xumaato labada danba khasaara kasoo gaaraya. haddii aad hadda nagu soo biirtay, halkaad nagala socoto waa VOA Washington, waana barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno muranka u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya iyo weliba arrimaha shidaalka Soomaaliya. barnaamijka waxaa ka qayb galaya qareen Axmed Naasir Cabdullaahi oo ah qareen sare oo ku sugan magaalada Nairobi, Cabdirashiid Khaliif madaxa Machadka Heritage oo ku sugan magaalada Toronto ee dalka Canada, iyo Dr. Axmed Cali Yuusuf oo bartay arrimaha shidaalka iyo soo saaristiisa oo ku sugan magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. haye Dr. Axmed. Falastiin maasan arrinta ugu weyn oo Kenya cabsida weyn gelisa waxay tahay haddii maxkamadda la tago oo Soomaaliya loo xukmiyo dhulka la isku haysto, dhinaca kale waxaa kaga furmaya Tanzania iyo Kenya badda ka dhaxaysa, Mozambique iyo ilaa South Africa oo dhan waxay noqonaysaa in dib loo calaamadeeyo. marka dhibka keliya maaha kay Soomaaliya ka weynayso, haddana wadamada kale ayaa waxaa laga yaabaa iyaga laftigooda inuu dispute bilowdo oo in xariiqin cusub ay raadiyaan sida loo marin lahaa. taasi dhibaato weyn. tan kale oo meesha jirta, dhulka hadda ay leeyihiin waxbaa howl baa laga qabto annaga iskale. taa ma aha muranka. arrintan dhan waxay ula dan leeyihiin mar walba waxay Soomaalida ku cadaadinayaan arrinta annagaa dhamaysan, sababtoo iyaga dan uguma jirto haddii maxkamad la tago. haddii maxkamada ku guuldareystaan, dhibaatada maaha dhulkan inay waayaan, oo weliba dhulkan mar hore shatiyaal ama licensiga ay companiya siiyeen, sida anadako total mineral rightska way bixiyeen oo howl inay ka bilaabaan isku dayayeen. dhibaatada waxay taa keliya maaha. Africa wadamada kale inay la wadaagaan sida Tanzania iyo wadamo kale oo Afrikaana inay noqoto in dib loo calaamadeeyo. waxaan siinayaa Axmed Naasir, haddii labada wadan ay wada fariistaan oo ay ka wada hadlaan xuduudan sida laga yeelayo, ma leeyihiin qabiiro ku filan oo shaqadan qaban kara ayagoo labada wadan isku raacsan yihiin haddii ay dhibaatada hadda taagan ay sababteeda tahay in maxkamad loo dacwo tagay? Soomaaliya waxaa u fiican yani qaynuunan haddii la fiiriyo maxkamadaas go-aanka inay gaarto. laakiin Kenya waxay rabtaa maadaama ay og tahay maxkamadaas in looga badinayo, haddaad fiirisid yani qaynuunka adduunka u yaala, waxay rabtaa Soomaaliya inay banaanka kula heshiisa iyadoo og mataqaana maadaama maanta marxalada Soomaaliya markaa fiirisid inayna dawlad taas u xoog badnayn, dawlad ay pressure saari karta
ay tahay. laakiin soomaaliya mataqaana arrintan soomaaliya kenya waxaa jirta taariikhay leedahay. kenya ma rabta yani go-aan maxkamadda oo ay international court of justice inuu gaaro. kenya zaaid waxay u rabtaa inay hoos kala heshiisa soomaaliya, waxay gacanta laismarmaroojiyo oo arrinta loo dhameeyo oo iyada u malaynaysa yani inay taabagareynaysa ama u fiican iyada. laakiin taas laftirkeeda haddii ay dhici weysay maxkamaddii la aaday marka hore ay aqbashay, maxaa dib u soo celiyey inay haddana maxkamadda waxoogaa dhibsato? maxkamadda markii hore mataqaanaa dacwada weyn lama gaarin. waxaa la gaaray dood waxay ka dhacday maxkamadan inay awood u leedahay inay dacwadan dhegeysta ama in sida kenya ay ku dacweyneysa ku doodeysa labada dal loo ogolaada inay iyaga arrinta dhameeyaan. kenya waxay maxkamadda geysay memorandum of understanding yani inay la gashay wasiir oo soomaaliya dawlooyinkii hore kamid ahaa u siixay. dabadeed waxay leedahay maadaama soomaali wasiirkan uu noo siixay waxaan rabnaa inaan anka banaanka ku dhamaysana. soomaaliyana waxay leedahay maya banaanka kuma dhamaysanayna, waxaan rabnaa maxkamadda inay dhamayso. dabadeed issuega hadda maxkamadda go-aan ka gaartay waxaa weeye preliminary. maxkamadda dabadeed go-aan waxay gaartay awood inay u leedahay dacwada inay dhegeysta. dabadeed hadda stateska ku xiga waxaa weeye maxkamadda inay dacwada fuul dhegeysata, waana ay ka gaarta xukunta xuduudka si u dhici lahaa. haye cabdirashiid. talo kuma lahan maxkamadda hawshaan ee soomaaliya iyo kenya ay hadal u socdaan laysaga dhex baxo. soomaaliyana waxay dhahaysay waa isku soo daalay oo hadaladii waa naga soo istaageen. marka kenya marna ma warrinba maxkamaddaas in laisla aado. dalkan iska nugul oo baa maaragtay ba isdhahaysa waad ka dhamaysan kartaa. marka aniga qodobka aan rabo inaan xoogaa oo ka yara baxso su-aashaada, laakiin rabo inaan meeshaan inuu munaasib ka yahay waxa weye dawladda soomaaliyeed guud ahaan kuwii jiray ilaa maarata carta laga soo bilaabo ilaa midaan hadda joogta iyo tan kusoo xigta hawlo aysan khibrada u lahayn bay badanaaba gacanta la galaan. waxaana ka ratima in runtii lagu ajarmo oo dhibaatooyinka iyo daanooyinka ka yimaada ilaa hadda lala macnaa madaxa dadka la daryaamayo. marka runtii oilka ama soomaaliya ha horboodo qodadiisa, dad soomaaliya ha horboodaan ama ajaanib ha horboodaan. mar haddaad aragto oil loo farabaxsanayo iyadoon shuruucdii iyo amnigii iyo dimuqraadiyaddii iyo accountability-ga iyo isla xisaabtankii iyo iskahorjoogtayntii aysa diyaar ahayn, waa in maskaxda lagu hayo in la danaysanhayo oo dad ay malabsanhayaan oo u malabsanhayaan, u haliilhayaan maaragtay maxaa la dhahaa khayraadkaas sidii loo soo bixin lahaa. soomaaliyana corruptionka aada u badan yahay. doorashooyinka lagu ogaaday sida lacagaha iyo isku dabamarayaan, sidaan loo xishoonahayn oo lacagta loo bixinhayo marka doorasho timaado. sidaas darteed runtii baasiinkan dawlado dadku doorteen oo shacabka soomaaliyeed intay u codeeyeen malaayiin qof u codeeyeen baa arrimihiisa anagu waxaa aaminsanahay hadda kahorna daraasaan ka sameynay arrimihiisa gacanta la geli kara. dadkan runtii u haliilahayo oo ayagoo aanba aan xayndaabkii dalka iyo amnigii iyo shuruucdii iyo waxba la hagaajin farabaxsigaan la farabaxsanayo waxaa ka dhalan kartaan yidhi anaga daraasadaas aan sameynay 2014 in macnaa sida Nigeria oo kale la noqdo oo in yaroo dabaqada oo batroolkaas ku agdhow oo say wax uga daadsan karaan uga daadsadaan ay soo baxdo. inta kalena sida Nigeria loo maartay loo waa mahadsantahay beer dhulka loogu hayo. marka runtii siyaasiyiinta Soomaaliyeed laftigooda degdegoodu dhibkan waa leeyahay. hal nin oo wax saxeeyna ma ahayn kulligood ba u baahan inay tartiibsadaan macnaha oo iska daayaan iyagoo aan mandate iyo taageero shacabka ka haysan iyo fasax inay dabalka ka qaadaan haamo dadka Soomaaliyeed oo abuuran oo waliba lagu heshiin sidii loo furfuri lahaa. aad u mahadsantahay. waxaan siinayaa Dr. Axmed Cali Yuusuf. shidaalka Soomaaliya oo la baaro marka laga soo tago in shidaal la helo ama la soo saaro, qatar kale ma keeni kartaa oo ah nidaamka loo maamulayo shidaalkaasi? Falastiin waa keeni kartaa. shidaal marka la helo waxaa imaanaya dhaqaale, lacag ayaa imaanaysa. lacag wax walba waa bedeshaa. marka waa mindi laba af leh. haddii wax laysla ogyahay oo heshiis lagu yahay meesha jiraan ummadda dhan ayaa ka faa'iideysa. haddii laakiin inta badan ay kambaniyada hadda inta badan hormuudka ka ah ay danahooda fiirsanayaan, ummadana aan waxba faa'iida ay kasoo gaareen ida la figada dhibaatay leedahay.
markaa fiiriso guud ahaan wadanka shidaalka keliya ma aha, kheyraadku waa badan yahay. Soomaalida dhulkeedii badda muran baa ka taagan, waa aragtay dekedihii wadanka dadka iyo dalkii gacanta uguma jiraan, kheyraadkii badda gacanta uguma jiraan. marka qof walba Soomaaliya waxa u muuqda shidaal markuu maqlo in nidaamka hadda jiro kale badii iyo dekedihii inta kale iyo macdan la iska gurto intaas qofka hor imaanaya. marka waxa wanaagsan in nidaam loo helo, heshiis lagu yahay, annaga faa'iidada intaan la gaarin inay si dhibaato nooga imaan civil war inaan dib ugu noqono, dabaqado inay meesha ka abuurmaan. taa waa laga hortegi karaa haddii si fiican loo maareeyo. hadda 15 baloog ayaa la bixiyay. 15 baloog haddii dadka ay wax ku bartaan nidaamka ganacsiga, sidii wax loo soo saaro, wadanka institution ma laha iskoolaad dadka wax lagu baro, intaa la sameeyo, intaa markii lugaha aan ku istaagno ummadda ay bartaan, kadibna wadanka intiisa kale waa dadan yahay, waa buuxaa, waa la baari karaa, waa la howlgeli karaa. in loo fakero waxa hadda la sameynaya in ay noqoto mid wax lagu barto, aan kaga gudbi karno meeshaan taaganahay. waa mahadsanta. waxaan siinayaa Axmed Naasir. Soomaaliya oo shidaal hadda soo saarta xaaladda ay ku jirto qatar ma kaaga muuqataa? mataqaanaa batroolka Soomaaliya mataqaanaa taariikh uu leeyahay, taariikh dheer, laakiin Soomaaliya weligeed ma waxay sugaysaa yani goormay batroolkeeda soo bixinaysaa hadduu dalka ku jira? 100 sano la sugaya, ma 100 kaloo sana la sugaa. anigana ma fikradeeda yani sida dadka dooda ka qaybgalaya sheegayaan yani qodob la hagaajiyo, sharci la hagaajiyo. Soomaaliya maanta haddee heli karta fursad inay batrool kusoo bixiso, yani ama dawlad tabareer ha ahaata, ama sharciga si fiican aan loo qorin, ama dadka in lala mataqaana dadka Soomaaliya dhan in lala tusto maaha oo la dhaha war maanta codaan qaadayna batrool aan soo bixinayna. Soomaaliya yani dhaqaale ma haysa, dal oo hadda mataqaana Soomaaliya wax siina male. fursada ugu fiican Soomaaliya maanta inay si fiican u kacdo waxa weeye batroolka inay lasoo baxdo. waa anisan u arko waa fursada ugu fiican Soomaaliya maanta inay dhaqaale hesha oo dawlad soo kacaysa ay noqoto. waxaan weligeed lama sugayo meeqa sano Soomaaliya si batroolka 100 sano ka hor la lahaa Soomaaliya batrool ku jira. Carabaha markii batroolkan laga soo bixinayay, dabadeetinka Soomaaliya maanta waxay taagan tahay waqti inay ka lumta ma aha, sidii batrool ee kusoo bixin lahayd oo dalkan bal dhaqaale lacag laga heli lahaa loo hela. muhiimadaas in la saara ayaan qabaani. waa mahadsan tahay. hay Cabdirashiid. horta batroolka in la soo saaro oo gaajadan loo dhimanayo iyo runtii waxbarasho la-aantan iyo looga baxo waa loo baahan yahay. laakiin wadamo badan baa batrool lasoo baxay oo macnaha markii dambe ciqaab ku noqday. nicmo meeshii la filaya inay ka noqoto ay niqma ku noqoto, iyo cares oil cares yaaba loo yaqaanaayo. in yar baa wixii iska maaragtay iska muraadsanaysa. marka Norwayna hadda wadamada adduunka sheego weeye inay maaragtay si fiican uga faa'iidaysto Nigeria iyo Equatorial Guinea iyo wadamo badan hadda waa laga sheekeeyaa sida maaragtay ay wax uga xumaadeen. marka haddii 100 sano macnaha la baahi la qabayna de in iyadoo 2 beri kadib macnaha laga bixi karo maanta iyadoo ciiriina la cuno, wixii ciiriin cooda aan karsayn la cuno ma fiicna oo runtii. marka shuruuc baa loo baahan yahay, waxaa loo baahan yahay siyaasiyiin iyo ummad civil society in behelan furan yihiin. siyaasiyiin waadiye laga hayo ayagoo laftigooda xalaal miirad ah. waxaa dhici karta madooba Allah ku yaqaan in ay tahay oo waxa ay sheegaan laga rumaysanayo, kadibna ay dhahaan 20kaas ceel baa wax lagu sheegay, annagu maadaama aan idin soo barbaarnayn 4 aan maaragtay annaga hana la siiyo, waana 4tii wax ku jireen baa dhici karta inay saas ku qaataan. marka hab aan hataa isaga miisaami karno waxaana loo sheegayo ma jirto. amni darrada iyo sharci darrada iyo wareerka dadka ka jirana dadkoo dhan mooga. marka horta kow doorasho la galo, shacabka Soomaaliyeedna oo maaragtay 1400 ka badanna ciddii ay mandate siiso oo maaragtay oo malaayiin qof ciddii mandate siiyaan, markaas ha bilaabaan iyagoo shuruucna haysto ay jiraan. bulshadii rayidka ahayd iyo saxaafadii iyo xisbiyadii iyo laisku wada jeedo.
intaan la bilaabin hadda waxaa la isku murmahay auction baa la sameynaya, shidaal baa la baaraya, iyo lama baarahayo carwa tahay la isku haysto. waxbaan soo carweynaa, waxbaan soo bandhigaynaa. marka maxaa xal ah hadda maxaa xal ah, maxaa xalka u aragtaa? dowladda Cabdullaahi Yuusuf bedeshay MOU baa laga dhaxlay. dowladda xasan waqtiga xasan sheekh waxaa la dhaxlay maxaa la yidhahdaa Soma Oil baa hawada soo gashay. haddana cakirnaantan iyo maaragtay waxbaa la baaraya, waxbaa la gadahayaaba hadda la isku haystaa. marka waxaa fiican wixii yaalla oo shaqooyinka yaalla in marka xoogga la saaro. batroolkan meel aadi mahayo. marka nimaan farsamo lahayn oo khibrad lahayn oo gacanta la galana un cakirnaan iyo wareer iyo isbaarooyin caalamiga ka dhasha. marka anagu shaksiyan kalsooni badan kuma qabo siyaasiyiinta farabaxsiga ah oo saliidda farabaxsiga u ah. africa siyaasi farabaxsi ah haddii la arko meel farabaxsanayana inuu isagu danihiisa ay riixayaan waa la hubaa. marka aniga waxaan kalsooni ku qabaa shaksiyan qofkii shacabka soomaaliyeed ay doortaan oo mandate ummadda soomaaliyeed badankeeda ka haysta. laakiin siyaasi yimid oo 200 nin ay doorteen inuu arrimo waaweyn oo dadkan oo dhan ka dhexeeya ku talabaxo ma fiicna. laakiin guud ahaan hadda dowladdan iyo tii ka horeysaba dadaal fiican bay ka sameeyaan inay Kenya oo laftigeeda farabaxsi kala ah inay xakameeyaan. waana ku mahadsanyihin. waa mahadsanta. marka maxaa xalka u aragtaa? gabagabadii aan soo gaarnay. xalka aniga waxaan u arkaa in shuruucda iyo hanaanka macnaha furcadaanta leh oo musuqmaasuqa ka fog oo dalka la xoojiyo. hanaanka federalismka la xoojiyo. Kenyana runtii si cilmiyeysan oo caqliyeysan loo tuso dhulkan inaysa iyadu lahayn oo maxkamadan iyo hawshan ay socoto. wixii la sameynayana xalaal barqa lacag qashaaye shacabka Soomaaliyeed soo hordhigo. mandate-na cid haysatana ay farsamadeeda bilowdo. kuwan kale hadda shaqada wadana ay wixii daraasooyin iyo guud sameeyaan. laakiin anigu siyaasiyiinta Soomaaliyeed runtii macnaha maysa mandate shacabka ka haysan inay ku degdegaan arrimaha waaweyn oo dadka ma qabo. waa mahadsanta. waxaan siinayaa Dr. Axmed, maxaa xalka u aragtaa adoo soo koobaan? mahadsanid Filistiin. xalka wuxuu ku jiraa wadanka dhibaa ka jiray, intaasoo dhibaato jirta. horumarkan waa barbar socday. markaa fiiriso maanta meeshaan taagannahay waxaa soo gaarsiisay dowladda xasan sheekh. baddaan la isku haysto iyada dacwadeeda bilowday. dowladdan hadda timi iyadana inay meeshii kasii wado. waxaan u baahannahay in la hubiyo waxaan shidaal wadanka ma ku jiraan mise kuma jiro. waxaan hadda la sameynayo dhan waa saxanka koowaad. wax proof ah ilaa hadda lama hayo. waxaa jira problemka ugu weyna waxay tahay oo inta badan dadka ka lexleexdaan production sharing canshuuraha. imisaan ku yeelanaynaa, imisay leeyihiin. annaga wadan faqiira nahay. wax badan oo aan ku kordhinayna male. waxa keliya oo aan leenahay dhulkii dadkii maal gashan lahaa inaan u yeerno. dabcan riskiga qaadanaya, lacag fara badan ay gelinayaan, faa'iiday ka sameynaya. marka intay leeyihiin, inta Soomaalida leedahay, inta xataa haddii ay wixii ay noqoto waxaan buurnayn ummadii inay la sheego si wax u jiraan. waa mahadsanta. haye Axmed Naasir, gabagabadii maxaa xal u aragtaa? horta shidaalka mataqaanaa aniga yani waxaa la rabaa in la fahmo maanta Soomaaliya meeshay joogtaa. Soomaaliya ma mataqaanaa dal dhisan sida Kenya oo kale ama Uganda ama Tanzania oo shidaal raadinaysa maaha. waa dal oo mataqaanaa dal qabamay dowladda meedi waxay ka talisaa 10-15-20%. kabacdi waxaan dadka leeyihiin hadii sharci ha la hagaajiyo, baarlamaanka saan ha yeelo, dadka halala tashta. arrin oo meesha aniga saan u arka mataqaanaa priority ma aha. priority-ga Soomaaliya ee maanta qabto ama u baahantay waxaa weeye bal dalkan see central government oo xoog leh oo wax marin karta oo wax qaban karta see lagu yeelaa. petrolkan sidii lagu soo bixiyaba aniga sidii lagu soo bixiyo important waxaa ilaa aniga saan u arka petrol in soo bixiyo oo Soomaali kharash soo gasho oo dowlad gasho oo la dhisa. kabacdi arrintaas fikradeeda waxay la tahay yani central government oo xoog la horta dhisa. markaa dhisin yaa arrimahan kale la galaa. Kenya xiriirkoodana mataqaanaa ilmaha Kenya mataqaanaa inay go-aan gaartay xiriirka Kenya ee Soomaaliya la leedahay inay goysaa ama ay soo halaaba. waxaa laga yaabaa un yani inay tijaabenayso oo leedahay bal Soomaaliya concession ma ka heli karnaa bedelkii maxkamadaas go-aan ay ka gaari lahayd arrintan inaan intaan wada fadhiisana annaga aan hoos u gaadhna.
ilama aha Kenya inay xiriirka inuu sii halaabo inay rabtaan. Waxaan umaleynaya waa short term, waa iska fahan kabacdi mar dhowna inay iska dhamaan doontaan umaleynaya. aada umahadsantihiin qareen Axmed Naasir, Cabdirashiid Khaliif iyo Dr. Axmed Cali Yuusuf. waan salaamaya dhamaantiin. inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa marti inoogu ahaa oo ka qayb galayay qareen Axmed Naasir Cabdulaahi oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, Cabdirashiid Khaliif Xaashi madaxa Machadka Heritage oo ku sugan dalka Canada, iyo weliba Dr. Axmed Cali Yuusuf oo ku sugan gobolka Texas ee dalkan Mareykanka, isla markaana bartay cilmiga shidaalka. tan intaan dib dambe u kulmi doono dhammaantiin waxaanu idin leenahay nabadgelyo.